habeenku habeenada waa uu ka duwanaa. Tottenham falatasiyoonaya Real Madrid, boqoradii ha ka ahaato Real, guushuna ha ka ahaato cadcadka. tani inay tahay hooyadii iyo maamadii koobka Champions League marnaba marankaagama jiro. habeen dhallaankii Jarmalka laga soo diray caqliyad lagu dilay daqiiqada yar gudahood, kadib 45 daqiiqo iyo wax ka badan oo dhoola tusiyo hoogayo ay ku dhamaaday ay ku horsameeyeen goolka kooxda Real Madrid. caqliyadu markay shaqaynayso macashu bilaash uguma taalo Ancelotti, sidani oo kale sida loo kala gooyo wuu yaqaanaa dhallaanka reer galbeedku soo wakiishay. habeen waa dhaxda ka jabiyay hididiiladii iyo hankii qaybtii hore ay ku fakaraysay kooxda Borussia oo ahayd mid ka faa'iidaysan weyday iyadu fursadaheedii dahabiga ahaa. markaa tahay mid yaqaana sida loo gurto koobabka jaambaha, marnaba warwarku isagu maaha mid cagaha dhulka kaaga qaadaya bira garaaco. marka xaaladdu sidani tahay, keliya gurmadkaad u baahan tahay waa gadhleyda iyo sidoo kale duqaytida cawska cagaaran kuugu jira. habeen dhallaanka Borussia cawska garoonka cuneen hoogayo baayna calaalkooda u ahaa. horaa loo yidhi gaadhiga ninkii wadi jiray garan ha loo daayo. fahamta calayhi shay kullu kalaam ayaanu la leenahay. saleeqoon dalaali de Champions ayaanu leenahay Real Madrid, sababtoo maxaa yeelay way u qalmaan. wixii ay sameeyeen waxay wax daqiiqado ka yar 20 daqiiqo kulanka ay ka harsan yihiin ay gebi ahaan laba ugu kala jareen. habeen ay maryaha ka calaashadeen 15 daqiiqadood gudahood, haragoodana ku tukadeen dhallaankii Jarmalku wakiishaya Borussia Dortmund. isqaadqaadka taageerayaasha ficilka badan ee Haruuda habeen ilintooda cawska Wembley lagu waraabin doona ayay noqotay. wixii bandhig qurux badnaa ugu dambeyn wuxuu ku soo afqaay Wembley bartamihiisa. habeen kulmiyey dad caana oo aynu ka dhex aragnay shaashadaha intii kulankani socday. haliyeeye hore kubadda cagta, macallimiin kuwaasoo gebi ahaantooda ahaa goobjoog fantasiyaha goobtan ka dhacaya. dhallaanka afkala qaad iyo afka gacanta saaraya habeenku u ahaa. wax kaloo la sameeyaa mayse jirin. way la hortageen, way cidla ku heleen oo ku keliyaysteen, way geli waayeen, way dhalin waayeen, way u geli weyday, balse caqliyad ayaanay ku dhisnayn. dhallaankii dholdhoolinta laga badiyey waxay noqdeen kuwo iyagu dhaayal koobkii lagaga qaado. markaan ku leeyahay dhaayal waa hal mar oo keliya oo Ancelotti u fakeray kadibna laba u kala jaray. Carvajal haba iska daaweynaado garhkiisuna cawsa ha ahaado, balse wuu yaqaanaa habeenadii oo kale marka weerarkii la egmaday noqdo mid lagu mintiday in Real oo dhan marka ay wada weerar tahay sidani oo kalena ay wax uga imanayaan. kuwii la egmaday ayaa intaa kadibna albaabadii la hirdiyey iyaguna cagahooda ku maala. Borussia, Bechdel, Messi, Buba, wax kastaba waxay ahaayeen biibiila. ugu dambeyn naqaskii ayaa ka baxay. Borussia Dortmund laa yarxamush, looma aaba yeelin. maalmo badan waad soo faraxdeen, dadaal wacanna waad samayseen, balse maydi ahayn kuwii u qalmay. wixii dhacay kulankana aan isdul taagna Real walow qaybta hore laga fiicnaa. qaybta hore sababta lagaga fiicnaa wax kale ma ahayn isku dayada garoonka ee goolka lagu aadinayo. Real waxay ka ahayd ever inay goolka hal mar oo kale shot on target ay ku samayso, balse isku soo noqodkii wax kastaaba way isbedeleen. guud ahaan kulankana kooxda Borussia 13 shoot ay goolka ku tuurtay, 4 ayay ku aadisay. Real 13 ayay ku tuurtay, 6 ayay ku aadisay. kubad haysashada markastaba Real way sarreysay oo 43 ayay lahayd Borussia, halka 750 ay lahayd kooxda Real. 403 baas oo badi yimi qaybta hore ee kulanka ayay samaysay kooxda Borussia, 345 way saxday. 549 baas oo Real Madrid samaysay oo badidood qaybta dambe yimi, halka qaybta horena qayb cayiman ay ahaayeen. tirada yimi baasasku 502 ayay saxday. taakalada Borussia 18 ayay samaysay, halka 14 ay ka samaysay Real Madrid. 12 foul iyo 8 ayay kala yihiin dhankana, halka koonayaashana qaybta hore Real iyada markaad eegto aanay qaybta hore koonayaal baan helin, balse qaybta dambe roobkii daaimay ma kugu noqday lagaga dhigay caruurtii Jarmalku soo wakiishay. habeen haragooda lagu tukaday maryaha laga calaashaday, caqliyad loo isticmaalay nooc kastoo ay ahayd ay qaybtii hore ku soo martayna afkala qaad iyo dhabanada qabso ay xaalku ku noqday iyo istaagtaag. keliya waxaad ka waraysan kartaa halyeeyadii ka soo arrimin jiray cawska cagaaran. cadcadku haddii ay maqlaan astaanta jaambaha way garanayaan ugu dambeyn halkii ugu dambeysay markay taagan yihiinse waa kuwo aan marnaba farahooda laga qaadin taariikhda casriga. Jude Bellingham curadkii hore ee kooxda Borussia Dortmund
waayihiisa quruxda badan isagoo difaacanaya marnaba kama u tanaasulin inuu hibadiisa mar kastaba u adeegsado kuwa ka soo horjeeda maaliyadda uu difaacayo. 1 gool oo assistana, 35 baas, 2 taakal iyo sidoo kale 7 dubool oo lagu daray 3 kubadood oo iyagana soo celin ku sameeyay. haye shaqo adag ayaa wiilkani ka qabtay cawska cagaaran, uma baahna tilmaan iyo faalla kale. haddaba aynu isdul taagna koobkan Champions League. Real Madrid markaan kuleeya waa boqorad, marnaba iyada murankaaga ma jiro. saleeqonta La Liga Champions waa Real Madrid, cid kale maaha. 15 ayaa xaajadu noqotay. AC Milan waa 7, Bayern iyo Liverpool waa 6, Barca waa 5, Ajax waa 4, Man United iyo Inter waa min 3, Juve, Benfica, Chelsea, Nottingham Forest iyo Porto waa min 2, Man City, Celtic, Hamburg, Stade Bucharest, Marseille, Dortmund, Feyenoord, Aston Villa, PSV, Red Star Belgrade. intaasina waa min 1. la kala guran og, la kala goosan og, la kala qaadasho og ayaa xaalku yahay. habeen fantasiyo xalaal u ahaa kooxda Real Madrid ugu dambeyntii. boqorada cadadku xaajadani oo kale waa mid guran taqaana. taageerayaal farxadu ka tabadatay iyo kuwa jibaysanba cawska cagaaran iyaguna waa lagu dhaxarkay iyagoo aad mooday inay orodkii maraatoonka ka qayb galayaan. gaardiyahanadu waa carbisnaa iyaguna cagta u saaray, ugu dambeyn way ka soo dhex gureen. habeenada kale ka duwanaa Real ay tahay boqorada Champions League. habeenaanu leenahay Tottenham Hotspur iyo Real Madrid saleeqonta La Liga Champions. waayo waad u qalantaan mar kastaba in hadalka laydinku celceliyo. gaadhiga ninkii wadi jiray garan ha loo daayo, ka daaya dhallaankaad soo lugoynaysaan, sidana loogu kala go'aaminayo wax ka yar rubuc daqiiqa. fahamta calayhi shay kullu kalaam ya akhi. xubintu waa kariskii iyo kala haadintii. anigu waxaan ahay Maxamed Tirike. iga raalli saaxiibayaal, yaraa xanuun baa jira dhinaca cunaha. codkayga haddaan sidii aad hore iga barateen aan idiin soo gaadhin idiin soo daceeya insha allahu maalmahanba xaaladeedu way ka dareemi karaa, oo taas ayaa sababtay inaan hawada ka maqnaado. laakiin insha allah waan ku dadaalayaa inta awoodayda inaan halkan idinka soo gudbiyo xubintan midda xigtayntaynu ku kulmi doonno. inta ka horeysa saleeqonta La Liga Champions ya Real Madrid, Tottenham Hotspur ya Real Madrid. sida ayaa maana allah saaxiibayaal. Smart Dental Clinic. Smart Dental Clinic xarunta daaweynta afkiilku waxay kugu wargelinaysaa in ay kuu samaysay qiimo dhimis aad u ballaaran sanad guuradii afraad awgeed. adeegyada qiimo dhimista lagugu sameeyana waxaa ka mid ah birta ilkaha oo aad ku xidhanayso oo keliya $100 oo aan wax dambe lagu weydiinaynin. haddaba qiimo dhimistu waxay soconaysaa muddo kooban, dadka qiimo dhimista loogu xidhayaana waa ay kooban yihiin. sidoo kale Smart Dental Clinic waxaad ka helaysaa adeegyo kale oo iyaguna bilaasha iyo sidoo kale qaar qiimo dhimis leh. hamogaanin Smart Dental Clinic oo ku taala gudaha magaalada Hargeysa, gaar ahaan agagaarka Hotel Cali Jirde ama markaad u dhaqaaqdo wadada dheer ee tagaysa xarunta dabdamiska. inta aanad gaarin waxay ka soo